dawladda Soomaaliyeed iyadoo midaysan ay hadilmee maxaa maalmaheedii ugu horeysay ay noqotay mid jirta walaalayaal waynu ogsoonahay maanta oo 51 sanadood ka dambeeyay maalintaas dhibaatada ummadeenu ku jirto sidaynu nahay waxa inaga soo celin kara dhibaatada iyo dhaawaca weynayna gaaray waxa weeyaan iyadoo maalintii 51 sanadood hortood dawladdu ay noo dhalatay waxaynu ogsoonahay maanta siday wax inoogu dhammaan karaan oo ku soo celin karaa
karaamadeenii dowladnimadeenii iyo midnimadeenii waxa weeyaan inaynu soo celinno waddaniyadeenii sidaynu ogsoonnahay waddanku dhibaatooyinka badan ee soo maray waxa ugu weyn ee maanta ay haddii wax la hagaagi laayihiin waxa weeyaan iyada oo waddaninimadii laga tegey oo qofka xusib iyo qof jacayl laga doortay waddanka jacaylkiisa kollaba waxaan idinku celinayaa dhallinyarada meesha isugu timid in haddii aad doonaysaan karaamadeenni inay soo noqoto siday ku soo noqon kartaa inay tahay waddaniyadii Soomaaliyeed oo la soo celiyo Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato midnimadeenu ha noolaato midnimadeenu ha noolaato Waxaa dibadda la keenayaa
كسو gabagabayn lahaa ujeedada munaasabadan kuna soo dhaweyn lahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada SYAO oo barnaamijkan garab weyn naga siisay runtii barnaamijkaas ogtihiin waxaan sameynay ballanqaad sanadkii hore City Hall oo ahaa inay tahay ciriiri in dad badan naqasku ku dhagay sida daraadeedna aan nus qaban doono barnaamij ka dhici doona meel barxad ah oo Soomaaliya isliina u dhow ma ka rumayno runtii arrintaas maanta waaya cusub waxa garab ku siiyay ururka dhalinyarada SYAO oo maanta qarashaadka iyo everything meeshan galay idinka bixiyay Soomaaliya SYAO runtii waxa weeye waxaan rabaa hadal badan ma rabo munaasabada waa munaasabad Soomaaliyeed Soomaali baan nahay dad adinkeena ka qiimo badan ma helayno dad adinkeena ka qiimo badan noo imaan maayaan dad adinkeena ka qiimo badan qof kale naga doorsan maayo adinka dadka naga ah adinka idin shaqaynayna adinka isa kaayale Soomaaliya haddana waxa ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada SYAO Maxamed Cajiib ku soo dhaw صاحبك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامتين مدحنا جلسوا قبل كشح اللي بعنا وزيردي هور كسر دولة TFG دليرة الصوماليات يحبناها كسر سيفل سوسايتي يا سيدو كلاتا فنانين تا أنا نحن حكرنين عاو برامج كان يابكلا إنوسو بندقة عتي أو حكوا حس فنانين تي وابري هو الذي وابري سيدو كلاتا ويا عصب وأوهم بليننا محايلة ما أنت أورور كينا SYAO معنيس وعوي وأورور كأوتو حقوق دليرة الصوماليات وعوا دليرة الصوماليات وأيه وتنبي وحلقة ديك تحاول تبكى لقوشيتو mana tulqaadan doona in dhalinyaradeena xaabatabka lagu shita laga dhigo munaasabadana waa munaasabad aad u qiimo maxaa yeelay waxa wax ku bixine munaasabadii gobonimada dalka Soomaaliya soo wax wanaagsan ma ahin waa mahadsantiin waxaana dhalinyarada Soomaaliyeed ka shaqeynaa midnimada dalka Soomaaliyeed waxaana hormarinaynaa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo 20 sano ugu dambeysay laga dhigta xaabatabka lagu shita ama dalkooda lagu huriyo waa mahadsantiin sidoo kale waxa mahad gaar u celina waayaha cusub gudoomiyada ayaa u mahad celina Shiina Qayaar aad ay u mahadsan yahay sidoo kale fanaaniinta oo caawas nahagranin sida wanaagsan barnaamijka noogu soo bandhigay ururka SYAO wuxuu inii badan qaadi doonaa in aan muddo dhow aan bixin doono scholarship oo dhalinyarada wax lagu bari doono oo qaarna dalka gudihiisa qaarna dibadiisa waxaa u maleynaa scholarshipkaas inaad ka faa'iideysan doontaa haddii oo ilaah yidhaahdo maxaa yeelay waxaad tihiin mustaqbalkii beritaad tihiin dalka dadka madax u noqon lahayaad tihiin marka ilaahay waxaa ka rajaynaa inuu dalkeena nabad nooga dhigo inuu dal caadila nooga dhigo ummad xalaala oo 100% muslimiina ilaahay waxaa ka baryaynaa 21 sano kadib dalkeena inuu ilaahay nabad iyo caadil inoo siiyo waana mahadsantihiin waxaana qaban doonaa barnaamijkan iyo barnaamijyo kale ka muhiimsan waxaana fursadeena ugu horeeyay waxay tahay inaan dhalinyarada karab qabano iyo inaan munaasabadaha qaranka Soomaaliyeed inaan hormarin sida 15 May iyo 1 Luulyo iyo 26 Juun waana mahadsantihiin ayay dalkiina kaga wada waxauna fartiintaas uu igu soo dhiibay ruuxii Soomaalinimo ay ku jirto ee damiir Soomaalinimo la ayuu igu soo dhiibay wuxuuna soo yiri ruuxii damiir low wuxuu yiri dalkiinii aawayay dadkaygii dantu naga dhaxaysay inuu cadawi tago miyaa door
doonaysaan ma idin deeqi waayo xiriiri maa dareenteen dalagga iyo beeraha miyaan iga dul bixino mina idinku deeqsin ninka yaanba daabtee ibjiroobay waa kee macdantaydan dahano daaqalkayga taalana goormeed dayaysaan doog iyo dareemada xooluhu ku dararaan ma ku tiirsan weyseen qaxootigu degaan ma leh yaa iga dul wacanood iga dooranaysaan dadka dabad aadow xalingelin lahaadkii markii aan hurdada galay boqoshiyo xanuun daran gamci waayey soo kacay hal aan isdhegaysana waxay dhallinyaradu waa cudurdhaxaad dhiiranoo jebina waa kuwa ka dhiidhiya markuu cadowgu soo dhaarto waa kuwa hornabadii dhaxshee dhagarti beeneeya waa kuwa adduunyada dhex dhiga nabadda dheeraata haddii talo intaad meel dhigtaan dhinaxma beenaynin ha idhaarinina wax haqiiqa halka reebtaane waxa gabaygan igu dhaliyey waa ciilka igu dheere haddaad dhumisay soomaalinimo iyo dhaqankii noo yaallay allaan idinku dheeshee middaasoo dhib kale maahan dhallinyarada joogtana waxbaan dhihi lahaa caawa qurba layska dhoobnaado waa sharaf dhiciinniiye maxaa idinku dhacay sow adinka idinma dhowrayno maxaa idinku dhacay qarannimaa lagu dhaqaa reere maxaa idinku dhacay waa idinkaan dhoohan weligiine maxaa idinku dhacay waa idinkaan tala dhigay meele dhallinyarada soomaaliyey maa midnimo dhowrno laba hooyo ay wada dhashoon kala dhammaanaynin dhaqankuna mid yahay baa tee dhagartamaadaysid maandeeqaday kuu dhashay qaranka maan dhowrno ummad waliba dhiig iyo dhulbay dhaxal wadaagtaaye waxa caawa loo dhooban yahay waa xornimo dheere waa bishii gumaysigu dhacoo geesi dhiidheeye waa bishii dhammaan gobolladii calanka loo dhiibay dowladnimadu waa bishii dhammaan gobolladii calanka loo dhiibay dowladnimadu noo dhalatay oo nabadu dheeraatay calankana la dhigay meel walboo dunida loo dhoofo inkastoo raggii dhaliya uu dunida qaardhaafay aqoon-yahankii dhiirada lahaa waa ka wada dhooban waa su'aal dhammaantiin dhaxtaad dhagan miyaa laaban mase dhulal kalaa yeelateen dhoofadaa jecele isma dhiiri gelisaan samaha kuma dhowaataane diintana ma dhowrtaan ma raba dhaqan warkii daaye war intaad dhaqaaqdaan dhammaantaga dhulkii aada wixii maanka kaa dhiba aqlaa lagu dhammeeyaay gayigeenna soomaaliyeed aynu garanayno gobollooyin dhowleeya hoogeys walbaba yaalla dhalan kala gooyin baa dagoo gacal wadaagaane aanu soo gudbiya waaniya garashadaydiiye waayo aragaraad laatihiin gibi ahaantiine dhaqan gaara baad leedihiin dunida gaarsiisan islaamnimada waa lagu gartaa gayiga soomaali guurtiya ugaas baa jiroo talada gooyaane culimmaduna gaarnooto oo diinta garanaysa maxaa talada loo gees maray oonu garan weynay waa su'aal gudboon oo jawaabteedii garan weynay ummad kala go'in baa tihiin guyiyo jiiraale allow yaa ka gees iyo ka gees nabadda gaarsiiya geeska xamar gallaadiya wadheer soona guricaalba gallisoor garowgiya barbara gacankii buuhalle allow yaa ka gees iyo ka gees nabadda gaarsiiya guryihi hargaysiya gabdagu balanba loo gaaro matabaangaroriyo hobiya gaarisiyaelba waladii xaraaliyi ilaa saylac gudaheeda allow yaa ka gees iyo ka gees nabadda gaarsiiya goday iyo warshi gobolka hiiraanba goday iyo warshaa gobolka hiiraanba goday iyo warshi gobolka hiiraanba Yeah.
baa u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin waxa weeye waxaa farxadii ah inaan caawa idinkala soo qayb galo xafladdan aad u qurux badan leh waxa weeye maanta waa maalin Soomaaliya qiimo weyn u leh cid ay sugaysana waa adinka maalin la iloobi kara maahan waad la socotiin dhallinyaradii soo dhalisay iyo adinkuba isku mid tihiin hoggaankii waddankana adinku idinku dhex jira marka waxaan rajaynayaa inaad isku duubantaan runtii waxa weeye caalamku waa nala yaabsan yahay waxay leeyihiin ummaddan 20 sano dagaal ku jirtay ee aabbaaba'ayn maxay tahay waxaa noogu wacan Soomaalidu waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo isjecel oo isgarab qabta oo midnimadooda ay tahay waaxid marka waxaan idin rajaynayaa guushaan idinka muuqata inaad waddanka kula soo laabatiin adigoo sidaan si ka fiicana marka anna waa idinku hambalyaynayaa gabdhaha iyo wiilasha waxaan idin leeyahay sharaftiinna iyo magaciinna dhowra waddankiina ku soo laabta Soomaaliya ha noolaataan idin leeyahay waa idinkaasaan marka waa idin mahadsantihiin sida wanaagsan noo soo dhaweyseen sanadkan sanadkiis kalsha bash iyo barwaaqaan idin rajaynayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi maanta munaasabadan dhalinyarada Soomaaliya oo isugu timid intiinan oo maanta ay ka muuqato caawa yani wadan jacayl ay ka muuqato waxaan idin sheegayaa anagu waad ogtihiin waxa la yiraahdo calanka Soomaaliya qiimihiisa uu leeyahay waa mid caawa aad u sidataan oo aad u arkaysaan oo aad xiiso u qabtaan waxaan rabaa kaliya inaan idin sheego taariikh gaaban oo idinku tacalluqda adinka waxa weeye anagu waxaan soo gaarnay maanta dalkan aad joogtaan dhibaatada aad ku joogtaan marka laga eego anagu waxaan soo gaarnay Soomaaliya oo baasaboorkoodu meeshii la rabo oo lagu mari jiray oo aan fiisa la qaadan jirin oo dalka Soomaaliya uu ahaan jiray dalalka ugu fiicnaa Afrika uu ahaan jiray baan soo marnay maantana waa u jeednaa xaaladda meeshay marayso dalka waa garan karnaa dhibaatada adinka dalka Soomaaliya guud ahaan haysata khaasaana aad la dagaalamaysaan maanta dambigeeda waxaa iska leh dad badan oo Soomaaliyeed oo aad dadkiina ka dhashay ama dalka u dhashay baa iska leh waxaan se idin sheegayaa haddii alla idmo haddaad sidaas aad muujinaysaan caawa niyadiinnu iyo muuqaalkiinnu uu isku mid yahay dalku waa ka bixi doonaa dhibaatada uu ku jiro ayaan qabaa aniga haddii alla idmo waxaan ilaahay ka rajaynayaa niyadiinna fiican ee dalka aad u qabtaan ilaahay inuu inii qaado
oo caqabadaha hortaagan iyo dadka dhibahaya ilaahay inuu ka hor wareejiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa caawa waxaan rajaynayaa bisheeda inaad Soomaaliya adinkoo nabad qaba aad ku ciidaan baan rajaynayaa adinka iyo Soomaalida kale u baahan waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato ilaahayna niyadiina wanaagsan haynii qaado Soomaaliyana dalka ilaahay ha u nabadeeyo dhalinyaradana waxaan kula dardaarmahayaa dalka waxaa la garab la siiyaa dawlad ka soo jirta hal ayido ayada toosaysa markii la ayido dalka nin xumi iyo nin fiican inta waa ka buuxaan adinkana mas'uuliyaddu waa inay saaran tahay odayaashana kaliya maaha kuwa maamulka joogana maanta u duceeyay abaaranina ilaahay ha toosiyo adinkana ilaahay hayna guuleeyo Soomaaliyana ha noolaato nabadna ilaahay ha siiyo kuwa dhibahaya hadday shaar xuwayihiin iyo hadday diin sheeganahayaan iyo hadday sheeganahayaan gaalada kuwa dhibahaya ilaahay ha ka qabto amiin maca salaama wa maasati
weya Dabtii dhalinteenna daayahooda weya Wacyigelin dhammaystiran dhalintaan la duufsaday Wacyigelin dhammaystiran dhalintaan la duufsaday dhaqan dooriska yimid ka dheeraaday leeyihiin ka dheeraaday leeyihiin wacyigelin dhammaystiran dhalintaan la duufsaday wacyigelin dhammaystiran dhalintaan la duufsaday dhaqan dooriska yimid ka dheeraaday leeyihiin ka dheeraaday leeyihiin Dabtii dhalinteenna daayahooda weya waa dhalinyaro dhammaystiran inkastoo la eegaba dabtii dhalinteenna daayahooda weya Dabtii dhalinteenna daayahooda weya waxay isku dhaarsadeen waxaa dhiba dhalaan keenaya dhegxumada keenaya inay ka dhowrayaan waxay isku dhaarsadeen waxaa dhiba dhalaan keenaya dhegxumada keenaya inay ka dhowrayaan Soomaalida dhammaan u dhiciyaan xaqooda ay isku dhaarsadeen Soomaalida